soo dhawaada khiyaartana la socota waxaan rabaa war degdega inaan idinla wadaago oo ku saabsan halka uu ku dambeeyay madaxweynihii dalka Syria ee xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. warar soo baxaya waxay tilmaamayaan Bashar al-Assad in uu ku geeriyooday shil diyaaradeed sida ila wareedii ay u xaqiijiyeen wakaalada wararka ee Reuters. haddaba diyaaradda qaaday xageebay ka duushay dhinacee ayay ku wajahnayd maxay ka qorayaan wakaaladaha wararka qaarkood ay Reuters ugu horeyso haddii ay sadhab noqoto Bashar al-Assad in uu geeriyooday isla markaana uu ku dhintay burbur diyaaradeed waxaa muuqanaya inuu raacay qaar kamid ah wadadii ay raaceen dictatorradii Carbeed ee xukunka laga tuuray. arrintan ayaan rabaa barnaamijkan si gaar ah inaan kuugu falanqeeyo. waxaan sidoo kale kuu sheegi doonaa war weyn oo ka soo baxay dowladda Turkiga oo ku saabsan xaaladda waddanka Syria oo hadda si weyn indhaha loogu hayo. Abu Mohammed al-Jawlani ayaa waxa uu sameeyay tallaabooyin waaweyn oo la xiriira dhinaca amniga iyo isbedelada waaweyn ee ka dhacay gudaha waddanka Syria. haddaba Syria xageebay ku socotaa haddii ay dhab noqoto Bashar al-Assad in uu geeriyooday isla markaana uu ku dhintay burbur diyaaradeed maxay uga dhigan tahay shacabka Syriyaanka ee xukunka ka tuuray. markaasi iyo waliba dhacdooyin kale oo ku saabsan bariga dhexe ayaan rabaa inaan barnaamijkan kooban kuugu sheego si aad dhacdooyin iyo tafaasiil kale iyo waliba taxliil dheeraad aad u heshaan ku soo biira YouTube channelkeena oo subscribe dhaha aad ayaad u mahadsantihiin. goor dhaweyd wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa laba ilo wareed oo ay si weyn ugu kalsoon tahay oo ku sugan gudaha waddanka Syria ayaa waxa ay sheegeen in loo malaynayo madaxweyne Bashar al-Assad oo xukunka laga tuuray in uu ku geeriyooday burbur diyaaradeed kadib markii diyaaraddu ka qaatay gudaha dalka Syria isla markaana uu rabay in uu ku baxsado. wararka la helayo waxa ay tilmaamayaan in Bashar al-Assad markii ugu horeysay diyaaradii uu ka qaatay Dimashq ay ku wajahnayd gobol dhinaca xeebta ku yaalo oo ay ku badan yihiin calawiyiinta oo isaga ka soo jeedo laakiin wax yar kadib ay jihada bedelatay isla markaana ay ka baxday qariirada dalka Syria sida lagu sheegay website-ka Flight Radar oo ka faallooda arrimaha duulimaadka. diyaaradda ayaa loo malaynayaa markii hore in ay dansatay raadeerkii isla markaana waxaa la leeyahay waxa loo malaynayaa diyaaraddaasi inay dhacday taasi oo suuragal ka dhigi karaysa Bashar al-Assad in uu ku geeriyooday burbur diyaaradeed oo diyaaradda Syria ay leedahay ah. warkan markii uu soo baxay durbaba waxaa bilaabmay in warbaahinta adduunku ay si weyn u dabagalaan halka uu ku dambeeyay Bashar al-Assad markii xukunka laga tuuray. kaliya waxaa la og yahay in uu ka baxsaday gudaha magaalada Dimashq ee caasimadda Syria. warbaahinta kala duwan ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn uga faalloonaya dhacdadan iyagoo xiganaya ilaha dhinaca wararka oo ay baahisay wakaalada wararka ee Reuters. qaar ka mid ah dadka ayaa isweydiinayay saacadihii la soo dhaafay halka iyo deegaanka uu tagay Bashar al-Assad markii uu dalka isaga cararay. diyaaradda ayaan la ogeyn in ay heshay cilad dhinaca farsamada ah iyo inayba jiri karto sabab keeni karaysa Bashar al-Assad diyaaraddiisa inay raadeerka dansato iyadoo dadka sirdoonka faaqidaya ay leeyihiin waxa suuragal ah in dal kale uu aaday isagoo raba in uu qariyo raadkiisa. laakiin waxay leedahay Reuters marka la fiiriyo dhacdadan waxay muujinaysaa in ay suuragal noqon karayso in Bashar al-Assad diyaaraddu ay la dhacday oo isla markaana diyaaraddu ay burburtay. arrintan ayaa waxay noqonayaan mid saacadihii ugu dambeeyay ay si weyn warbaahinta u faallaynayaan. marka loo yimaado dalka Syria waxaa dhinaca kale war ka soo saaray agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka dalka Turkiga haddana ah wasiirka amuraha dibadda ee dalkaasi Hakan Fidan. waxa uu yiri Turkiga waxa soo gabagaboobay nidaamkii faasidka ahaa ee Bashar al-Assad sida uu hadalka u dhigay. Syriyaanku waxa la filayaa inay hadda u bilaabato nolol wanaagsan oo ka qurux badan tii ay ku soo jireen 50 iyo dhowrkii sano ee bacthiyiintu ay hogaaminayeen dalkaasi. wararka ugu dambeeya ee hadda la helayo waxay tilmaamayaan in Malaysia hubaysan oo kamid ah dhinacyada Tahrir al-Sham ee la wareegay talada in ay hotelkii uu deganaa ay ka soo kaxeeyeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo hadda talada si ku meel gaar ah u haya isagoo ujeedadiisu tahay in shaqadiisa maalinlaha ah uu si caadi ah u wato. marka la fiiriyo kooxda talada la wareegtay waxa ay muujinayaan bisayl dheeraad ah waxaana ka muuqanaya dadaal fara badan
iyagoo doonaya inay xakameeyaan aragtida shacabka. waxaa guud ahaanba magaalooyinka waaweyn oo Dimashq ay ka mid tahay laga mamnuucay in risaasta kor loo rido. waxaa sidoo kale la mamnuucay in qof fikirkiisa gaarka loo caburiyo. dadka ayaa bilaabay in ay wadooyinka isugu soo baxaan. meel ay ka mid tahay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan, boqolaal dad ayaa isku soo baxay iyagoo isugu hambalyeynaya dhicitaanka Bishaar al-Asad. dad fara badan oo ka soo jeeda dalka Lubnaan ayaa ku jiray xabsiyada Syria ee Bishaar al-Asad uu gacanta ku haya nidaamkiisa. laakiin hadda waxaa muuqanaysa inay wax badan isbedeleen marka la fiiriyo xaaladda nolosha, amniga iyo siyaasadda waddankaasi. Abu Mohammed al-Jawlani oo la hadlay warbaahinta oo sharci loo yaqaan isaga weeyaane waxa uu yiri waxa lagama maarmaan ah dadkeenu inay noqdaan kuwa isku mid ah. ma jiraan qof fikirkiisa gaarka loo caburin doono. waxaynu ka shaqayn doonaa ayuu yiri in talada dadku ay wada yeeshaan, hogaaminta Syriana ay noqoto mid loo dhan yahay. mana jiri karaysa ayuu yiri cid gaar ah oo la caburinayo. Syria warbaahinta adduunka maanta iyaga ayaa haysata. waxaana la fiirinayay ninkan Jawlani lagu magacaabo oo magaciisa ay hore u dul saarnayd 10 milyan oo dollar oo dawladda Mareykanku ay dul dhigtay xilligii uu ka tirsanaa kooxaha argagixiso. hadda waxa uu la yimid fikir iyo afkaar ka bedelan xilligii hore. taageero waaweyn ayuu helayaa oo ku aadan dawladaha gobolka ee Turkiga oo ugu horeeyo, sida warbaahinta waaweyn adduunka ay ku falanqeynayaan. hadda warkan soo baxay ee ku aadan Bishaar al-Asad, diyaaradii uu raacay in raq iyo ruux midna lagu leeyahay. Reutersna ay leedahay waxba suuragal ah in ay dhacday isla markaana Bishaar uu ku geeriyooday. waxa ay noqotay mid warbaahinta waaweyn hadda indhaha ku shiday. haddii ay suuragal noqoto Bishaar al-Asad in uu burburkaasi diyaarad ku dhintay, macnaheedu waxa uu noqon doonaa inuu raacay jidka ay mareen Qadaafi iyo saaxiibadii isaga ka horeeyay oo ka mid ahaa Cali Cabdalla Saalax iyo Said Caabidiin bin Cali. waa dhamaadkii nidaam dictator ahaa oo muddo dheer soo taxnaa, kaasi oo gacan adag dadkiisa kula dhaqmay. laakiin Syriyaanku hadda laba wada ayaa mid u dooran: in ay galaan jid fiican oo wanaagsan oo dawladnimo ku dhisan, in iyaga qudhooda ay xukunka isku qabsadaan. haddii ay tan dambe dhacdo, macnaheedu waxay tahay Syria wada aan qurux badnayn inay ku socoto. laakiin haddii tan hore ay dhacdo oo ay Syriyaanka sida ay hadda isku fahmeen ay u wada jiraan, macnaheedu waxay tahay in Syria ay ka kabanayso nus qarni kadib dhibaato iyo rafaad ay muddo dheer ku soo jireen. soo dhawaada saaxiibayaal, qodobadaasi ayaan rabaa intaas inaan ku soo koobo inagoo si gaar ah dhacdooyinka bariga dhexe indhaha ugu hayn doona. si aad xog iyo macluumaad kale u heshaan ku soo biira YouTube-keena oo subscribe dhaha. soo dhawaada.